Islaamku waa diinta ugu fidista badan caalamka. Qof walba ee xaqa daraaseeyana ugu dambeyn waxa uu qaataa xaqa sida dadkani oo kale. Waa silsilada taxanaha sidee ayay ku islaameen. Famaa dhannukum birabbil caalamiin. My name is Salman. I am from India and I've been a Muslim. Magacaygu waa Salmaan, waxaan ahay qof Indiyaan ah, waxaana Muslim ahay muddo 6 My sano story ah. begins Qisada aan ku soo islaamay waxa ay ka soo bilaabanaysaa xilli fog waqtiga iskuulkayga. Wiil aan saaxiibanahay ayaa waxaan iskala doodi jirnay nolosha iyo geerida waxyaabaha ka dambeeya. Balse waxa uu ii sheegi jiray waxyaabo aanan weligay horay u maqlin, sida nolosha qabriga, nolosha qiyaamaha, dadka siday u kala bixi doonaan. Waxa uu ii sheegay inay jirto meel weligeed lagu raaxaysanayo, meel naftu u fiican inay ku indho qabowsato. Waxa kale oo uu ii sheegay inay jirto meel dadka xumaanta fala lagu ciqaabi doono. there is another place which has total punishment, devastation, only and only suffering. And I was like thinking about it. Waxyaabahani maadaama weligay horay aanan u maqlin, waxaan bilaabay inaan si dhab ah uga fakaro nolosha kadib maxaa jiri doona. Xaqiiqdii ma la i weydiin doonaa maanta wixii aan sameeyay? Haddii sidaa ay tahay, waa maxay micnaha nolosha ku jiro? Markaan fakaray, doodo badan aan galay, waxaan xaqiiqsaday in noloshu wax walba ee jiro macno ay leeyihiin. Wax walbana waxa uu leeyahay sabab ka dambeysa. Nolosha ma jiro wax iska dhici kara ujeedo ama micno la'aan. Wax walba haddii aad fiiriso. Tani inaan ku fakaro waa wixii igu hoggaamiyay inaan isweydiiyo, horta maxaan aniga adduunka u joogaa? Maxaa la igaga baahan yahay inaan sameeyo? Haddii adduunka aan ka tagana, maxaa iga dambeeya? Tani qof walba ee si dhab ah isku weydiiyay waxa uu fahmayaa xaqiiqada nolosha ee diinta. And when anyone thinks this way, he's getting serious about life and he is thinking about religion. Okay, what's the best place to Haddaba waa halkee halka ugu fiican uguna saxan ee diinta laga baran karo? Tani ma aha mid qof uu ii sheegi karo, waa mid la doonayo inaan anigu helo. Sababtoo ah diinta qofka ay badbaadada u tahay waa aniga. Waaba qeexisteedaba. Diintu waa habka iyo nidaamka iyo dhammaystirka nolosha. is a way of life, a complete way of life. And who Waa kuma qofka wadada saxda ah kuugu hagi kara ee aad ku badbaadayso? Waa abuuraha. Haddaba sidee abuuruhu bani aadamku ula soo xiriir uuna ugu sheegay micnaha nolosha? Si toos ah waa wadada waxyiga. Kutubtii hore xitaa waxaan ka baranay in waxyi u dambeeyo, sida kitaabka Qur'aanka uu isaga marakacayo waa waxyiga u dambeeyay ee xag alle ka yimid. Waxyiguna ma aha wax hadda soo bilowday. Bilowgii inta bani aadam dhulku uu jiray xitaa waxaa jiray wadada nolosha. Waxaa jira hal diin iyo hal ilaah oo keliya oo qasab ay tahay in dadku ay caabudaan. Haddaba waxaad isweydiin kartaa, hadday sidaa ay tahay maxay u jiraan diimo badan? Sababtoo ah dadka ayaa isqaybqaybiya kana leexday wadada tooska ahayd ee la doonayay. Maseejka xagga alle ka yimid ee asalka ah weligiisu isma bedelin. Waa in la qiro in hal ilaah oo keliya oo la caabudo uu jiro. the original religion was just one. The original message from God is to worship Him, to submit to Him. Islam is not a new religion. It's been there from the beginning of time and it will be there till the end of time. Islaamkuna ma aha diin cusub, waa diinta saxda ahayd ee maseejkii alle ka yimid ilaa maantana jira, wayna jiri doontaa ilaa dhammaadka nolosha. Waxyaabahani waxay ahaayeen fakarkooda iyo fahamkooda kadib wixii sabab u noqday inaan soo islaamo. Maalin guur saaxiibkayga aniga oo jooga ayaan kula kulmay wiil kale oo Hindu ah oo diinta Islaamka dib ugu bedeshay. Ma ogtahay anigu waan necbahay inaan isticmaalo erayga converted oo bedelashada diinta. Sababtoo ah sida asalka anigu diin ma bedelan ee diinteeda asalka ahayd ayaan u revert garay, dib ugu noqday. Back to the correct religion
to the true religion that I was born in. The Prophet, peace be upon him, he says in one hadith, waayo nebi maxamed nabadgeli naxariiskoonkiisa ahaatee ayaa xadiis ku yidhi canug walba ee dhashaa waxa uu ku dhashaa fitrada. fitraduna waa wadada dabiiciga ee nolosha, yacni wadada nolosha ee islaamka. fitradu waa wado saafi ah oo qofka sida dabiiciga ay ku hogaaminaysa inuu qiro hal ilaah oo keliya. towards belief in one God. Islam has changed my life upside down. islaamku waxa uu kor iyo hoos bedelay nolosheeda. waxa uu isiiyey farxad iyo naxariis. wax walba marka aad fahamtid waxaa soo yaraanayo walwalkii, stresska iyo su'aalaha badan ee shakiga aad qabtid. dadka maanta haddii aad fiiriso waxa ay neceb yihiin sharciyada iyo amarada. dadka qaar waxa ay rumaysan yihiin falsafad ah in la iska noolaado, la iskana cabo, lana sameeyo wax walba ee maskaxda ku soo dhaco adiga oo aadan ka fekerin micnaha iyo ujeedada nolosha ka dambeysa. Live the way your heart wishes. Just live, just enjoy life. You only live once. But then, when Islam came, changed my life. It made me serious about life. It made me think at every step, every action that I do, I think before I do that. balse markii aniga aan muslimka noqday kadib waxaan bilaabay inaan si caqliyan u fakero tilaabo inta aanan qaadin ka hor. waxaan ka fekeraa ma wada saxanba ama waa wada dembi ah. waxaan bilaabay nafteyda inaan xisaabiyo, kuna koobnaado fuliyana amarada Allah iyo raaligelintiisa. wax walba ee nafteyda iyo maskaxdeeda ku soo dhacana awood uma lihi inaan sameeyo ilaa inaan ku fekero haddii alle raali uu ka yahay mooye. saaxiibkayga waxa uu isiiyey cajal Dr. Zakir Naik uu kaga hadlayo isbarbardhigga diimaha. markii aan dhageystay cajalkaasi, su'aalaha iyo jawaabaha uu ka bixiyay Dr. Zakir Naik waxa ay dejiyeen qalbigayga. waxaad moodaa sida inaan helay wax iga maqnaa oo hadda ii dhammaystirmay oo kale. tani waa wadadii aan ku soo islaamay. Way of life. So that's how, I came to, know about Islam. That's how I became a Muslim. My family, qoyskeygii markay iga dareemeen inaan diintii hore ka noqday waxay iga hor istaageen inaan muslim sii noqdo. tanina waa mid iska dabiici ah sababtoo ah qoyskeyga waqtiga iyo fakarka nolosha aan geliyey mid lamid ah ma aysan gelinin. and which is very normal because they themselves haven't thought about life, this way. They're just following what their parents have taught them, and then their parents have taught them, waxay isaga hoggaansameen wixii hore ee awoowayaashii hore ay u sharaxeen. qofkuna deegaanka iyo juqraafiga uu ku nool yahay ayuunbuu yahay, kuma fakari karo wax intaa ka baxsan. wuxuu u maleeyaa in ay qalad tahay wixii intaa ka soo hara. qofkuna waxaa wanaagsan inuu dibadda aado, ugu yaraan maskaxdiisa u furo, daacadna u noqdo, isna weydiiyo falsafada nolosha iyo ujeedka micnaha nolosha ka dambeeya. waxa uu heli doonaa iimaan dhab ah.